يا ما قاعد حنشي حمشة أحمد عبد السميد. يا حمشة أحمد عبد السميد. حمشة عبد أحمد سمد. حمشة أحمد عبد السميد. حمشة أحمد عبد السميد. وحن لا أنت تغني. يا وحن لا أنت تغني. صناد بلاد والله. لح بلاد. لح بلاد تغني. والله. واي واصحي الغد صبرت. لقيت الصوره أنا الفيسبوك اللي سمعي ما قرأتها. هاي ما إثيوبيا لو صبري. أنا خارب. إيش قف الله كرنت. فما بقول بدل ضغنا. هاي لا أنت هدي. صدق إثيوبيانا. واصحيين. صدق إثيوبيانا. يلا كرنت. هذا لا. مدينة لك وتقنا واحد. يا. مدينة لك. لح بلاد برضو. لح بلاد. كيف كبر هالكوتشو هاي. لح بلاد تقنا. إلى هذا شوي. كودي. إن مركا كيف كبر هالكوتشو هاي. ما شاء الله يا شباب. مركا الله ذكر فولا سما. حبات فوشة. هاي إذا توب كوايد قف فولا طبلا. توسعنا ما أنت. تيجو. تكشيد أنت هاي. تيجو. كم أنت كبحنا. توسعنا ما أنت. تيجو. تكشيد أنت هاي. تيجو. كم أنت كبحنا. ولادو أنا ما أنت. تيجو. تكشيد أنت هاي. تيجو. كم أنت كبحنا. ولادو. توسعنا ما أنت. تيجو. تكشيد أنت هاي. تيجو. كم أنت كبحنا. ولادو ما أنت. تيجو. تكشيد أنت هاي. تيجو. كم أنت كبحنا. ولادو. توسعنا ما أنت. تيجو. تكشيد أنت هاي. تيجو. كم أنت كبحنا. ولادو. توسعنا ما أنت. تيجو. تكشيد أنت هاي. تيجو. كم أنت كبحنا. ولادو. توسعنا ما أنت. تيجو. تكشيد أنت هاي. تيجو. كم أنت كبحنا. adiga iyo janaalka iyo daawadayaasha kugu xidhan dhammaan waan salaamayaa shakhsiyadda hodan haddaan ka hadlo gabadhaydii qof aada u wanaagsan bay ahayd qof aada u nugul bay ahayd qof aada u degan bay ahayd qof dad jecel bay ahayd qof aan cadaawad iyo dadka u kala soconayn bay ahayd qof fareenli qof walba aamintaay ahayd oo dadka la saaxiiba qadarta iyo nasiibka ayaa maanta dee waqtigeedii halkaa kusoo dhameeyey dhammaanna daawadayooga iyo dadka soomaaliyeed inta ila dareenka ah iyo inta naga damqatayba aad baan ugu mahad celinaynaa inta negatiifka iyo inta xun ka shaqaysana iyagana waxaan leenahay xagga iyaga masaamax baad ka tihiin hodan waa gabal wanaagsan bay ahayd dhalinyar bay ahayd maxaan ku idhaahdaay dhalinyarna maanta waqtigeedii unbay joogtay wax qalada oon dhalinyari samaynin may samaynin ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyaan leeyahay maxaan ku idhaahdaay inta maanta xumaanta sheegaysana waa dad soomaaliyeed inta ay noo qabteen baa ka badan inta ay noo sameeyeen baa ka badan inta ayna garab istaageen baa ka badan inta ay noo qabteen baa ka badan inta kalena aniga xaggayga masaamax bay ka yihiin waa marxuumad maanta cid walba way ka hooseysaa maxaan ku idhaahdaay waxay naga baahan tahay waa duco iyo cadaalad iyo xaqeydii ay hesho iyo maaragtay bulshada soomaaliyeed ee dunida daafaheeda kala joogtaa inay codkaygaasi gaadho inayna garab istaagaan inaan u helo cadaalad maasha allah hooyo macaaney aada iyo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ood hodan nooga sheekaysay walaashana ilaahayna ha u naxariista saad sheegtay naxariista ilaahayna kulligana u baahannahay hooyo dhowrkan beri oon isla joognay erey aan aada oola yaabay oon ka markii hore aanan filaynin baad igu tiri markii warka uu kusoo gaaray hodan ereyga af ingiriiska oo ah hodan is gone markii ereygaas aad maqashay hooyoy sidee baad u qaadatay sideed u fahantay wallaahi subax adag bay ahayd subaxan hurdo ka soo baxay waqtigaasaan shaqo ka soo baxay hodan goontii la yidhi na anigu goon waxaan u fahmay hodan in maaragtay dhimashaba umaan fahmin laakiin hodan in la waayey amba qof la tegay oo la qaatay ayay anigu fahankayga u noqday aada baanan dareenkayga u hoos u dhacay aada baanan miyir doorsamay because waxaan moodayay goon qofka amba geeri unbaad ku tirisaa amba nolol wixii u dhexeeya dee waa wax
aan la aragun lama qalo aad u xanuun badan waxaan kolkiiba maskaxdayda kusoo dhacday goon in laga tegay oonan geerina ku helay nolol ku helay waxbay dhaamaan laakiin goontii markii la ii fasilay la igu hooyo waa la dilay hodan way dhimatay dhimashada waa xaq waan sugayaa way sugaysaa waa looga horreeyay malaayiin Soomaaliya malaayiin dhalinyaro ah malaayiin rag iyo dumar laba ayaa maanta qurbaha ku dhamaaday qofkaagi oo aasato oo duugato wax ka qurux badan male marka anigu dareenkayga haddana mar labaad isbedelay markay geeri noqoto say goori waan sugayay waa la sugayaa qof walba wuu sugayaa صح marka goontaasi waxa ajaayib igu noqotay waxay hormariyay filim waxay hormariyay tii wabi lagu tuuray waxa la hormariyay tii la aasay waxa la hormariyay tii meel inta lagu oo to ay weligeed cidi ka soo saareen oo iskaga haysanayo waxyaalo badan baa maskaxdayda maartay ka guuxayay subax saarnay oo aad familkayga dareen weyn u lahaa booha meelan marayna maan ogay aqalka dhan uu ruxmayay haday ab tahay haday down tahay lamaan saas uu maartay ay gidaradu carduun leeyeen alxamdulillah hadan dad islaam nahay maartay diintii baa qabatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un baa qabatay alxamdulillah ala kulli hal baa qabatay aayadii allah naqabtay inay geeridu xaq tahay nala dhaminayo ما شاء الله walaalo oo ku mahadsantahay horta baan ina caawa maaragtay iga yeeshayna live ka soo gashid adoo rabeena waxyaabo badan clear garaysid ama cadaysid soo dhawaay waa dhawaay horta dhammaan asxaabta meesha ku jirta ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa meel walba ay joogaan dhammaan inta meesha ku jirto inta ii soo duceysay inta dhibkayga dareentay dhammaantood waan salaamayaa waxaan meesha usoo koray hadda wax yar inaa caddeeyo maadaama aan waqti aan video YouTube ku duubo ama YouTube ka hadlo aanan haysan tan xataa igu adag tahay laakiin waxaan jeclaystay inaan wax yar aan caddeeyo horta qof walba wuu dhimanayaa maanta qof adduunkan joogaayo ma lahan qof walbana saacadiisa ma dhaafayo aniga hooyaan ahay waxaan qalbigaygu u gubanayaa laakiin waa ku samirsanay qadarta Alle Ilaahay subxaanahu wa tacaala isiiyay shalay maantana iga jeclaaday saqiir waa dambi ma lahan alxamdulillah waxaan rabaa inaan halka ka sheego waxaan arkay gabar hadda YouTube ku soo duubtay Amira Qurux baan rabaa wax yar inaan halka ka dhaho horta Amiroy waan ku salaamayaa marka hore waxaad tiri anigu ma aqaani horta ma la socdaan asxaabta kula socdaan commentiga xiran kula socdaan goobtiga hadday la socdaan YouTube-ka ee clipka soo gelisay ha soo qoreen iska fur commentiga amiin hadday la socdaan topic aan ka hadlayo ha soo qora YouTube-ka ka soo aragteen videoga hadda soo gelisay Amira Qurux waa ka hadlayaa channelkeeda bye okay waxaan rabaa inaan wax yar dhaho Amiroy horta waxa weeyaan waxaad tiri ma aqaano gabadhaas horta aqoon waxaan u malaynayaa qof maanta garab u baahan inuu aqoon u baahnayn inaa aqoonaatid shal adi dhibaataa ku dhacday anigu ma aqoon waa soo fariistay YouTube waa ka soo hadlay macnihii dareenkayga ku muujiyey si qiiro leh
xanuunka aad dareemaysid inaan kula dareemayo kuma lahayn aqoon ma fahantay maanta waxaa keentay anoo tacsi ku dhex jiro wiilkaygii aniga 24 saac kama soo wareegin 24 saac kama soo wareegin intuu uu qabriga ku jiray inaa intaa codkayga keentid weliba soo jarjartay oo intii muhiimadda ahayd aad ka soo reebtay aad bulshada Soomaaliyeed aad la hortimid horta wax walba waxaa la yiri maxay ahayd maamaadii kor waaye loo wada indho qof walba waxa waaye uu arkayaa qof walba waxa uu u jeedaa anigu maanta ma qofna kuma qasbaayo muxuu qofkaas ii soo booqan waayey qof isaga xor ah qof wuu soo booqan karaa kumana soo booqan karo ilaahay wuu kuu saqiri karaa kuma saqiri karo qasab ma inuu qofku ku soo booqdo ma fahantay marka intaanan aan usii gudagelin sheekada codkan jeclaan lahaa ina dhegeysiisid waa ku mahadsantahay ducadaada aad iyo aad waa ku mahadsantahay farxiya waxay dhigeyso Soomaalida 1.7 meesha ku jirto dhagihiina fura si fiican u dhageysta fiidiyoga gabadha walaashii soo galisayna codka ay ku soo dartay si fiican u soo dhageysta macnihii waxa weeye waxa qiyaadada ka arkaysid ma fahanteen soo dhagihiina furta dhageysta codka dhameystiran waa kan oo la soo jarjarin dhageysta sida mahadsantahay ducadaada aad iyo aad waa mahadsantahay run ahaantii waa arkayna soo wacday soo waxawaaye ma rabin inaan qofna aan taleefka ka qabto qof oo waxawaaye Malaysia joogo inuu soo booqdo ma rabin fahantii because markii aan go'aan gaaray inaan qof iyo 20 biyo asal ku jira ma fahantay inta qofkii rabo inuu soo booqdana waxawaaye markuu horeysay arkuu soo booqan lahaa imaan lahaa ma fahantay so أنا كنت قصد كملي إنه إصاب بوقض معني خصب كمدايا إصاب بوقض لكن ما دام فرحة الأسلقة يفسدوا أو مرك أو فرحة جرتوا أنا مرقتنا وحفي عددكم ما دام يتسكودن جوغان الشقان اللي يدقف كليباتي سن إن لقرب استاق أو محيطي وحبايا لسيناني وحبا أمباني حول الحمد لله لكن حواده هو كلية فاميلي مجوغ وحبا ما قف أو مالين عاوية أما وحيقة عاوية فستالك كجرون وفوقي انتاس وحواي أبال بانوها لا مفانتي سو هادنا وحواي الحمد لله ما وحدي لما أهولالو وحواي مالك إسوا وحدنا أنا ربيني قف إنا تقبض التلافنك فانتي بكوز وحواي قوانا قاتي سو أني تدك وحيين ماش جوغا أوغادي سو قانكيغا كتاغنا مروا إنا جبي أدنو كما سنتاوي إتان كاغا thank you. Okay, Soomaaliya inta video-ga soo daawatay way soo daawatay codkana way soo dhageysatay marka kolay waxa fiican qofku haduu wax haduu sheegayo inuu wax macnii fiican ama been hadaa sheegayso wax la yiri wuxuu ag baa la sheegaa soo ani gabadha walaashay horta ma aflagaadeynayo laakiin se u hadashay baan xoogaa ka yara damqaday anoo maanta maxay tahay tacsi ku jiro wiilkayga adduunka ka fiirsanayo waayey ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay tahay ayaga jeclaystay alxamdulilah ku faraxsanahay qofna ma eedeynayo maanta qofna xanuun ma qaadi karo mana keeni karo laakiin waxa macnihii damiir xumo ah gabar Soomaaliyeed oo maxay tahay waxba idin wadaagin haddana isku building degantiin qof aadan waxba aqoonin waxba la wadaagin oo islaam ah hadii maanta tacsi ku timaado waad u tagaysaa ilaahuma qofka dad iska dishiin
darsaatiin xaqa la isku leeyahay maxay tahay waa la isku tegayaa waa la isku tacsiyadaynayaa laakiin anagoo isku building degan haddana ayna iisoo tacsiyadayn haddana cod aan adna weliba u diray iyadoo uma dirin adna aa u diray ay keentay oo tiraahday Soomaaliya runta ha la ogaado oo weliba soo jarjarto codkoon dhamaystirnayn soo taas waxa u arkaa damiir xumo iyo maxay tahay caqli xumo baa u arkaa naag weynaatay oo ilaa tukuuro ee gar iyo kafuur leh inta meel soo fadhiisatay sheegaysa macni waxyaala munaasib ahayn soo horta dee waxba kaama oranayo ma fahanti waqtina uma hayo hadda aan YouTube kusoo fadhiisto wax kusoo duubo marka umurahayga ii kala toosaan xaaladda aan ku jiro hadda ka baxo situationkan markaas wax weeyaan si fiican la isku dabsaarayaa soo intaas meesha u soo koro inaan sheego marka dee farxi adigana waa mahadsantahay walaalo